inta aanan gudagelin waxyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waa inaan dib ugu laabanno xoogaa qisada carabta iyo reer Maka iyo qaabkay ahaayeen iyo diinta ay haysan jireen waagaas. carabtu waagaas waxay ku jireen casri la oran jiray casrigii jaahiliga ahaa. casriga jaahiliga waxaa ka horreeyey waqti kulligood ay ahaayeen dad muslimiin ah oo Allah subxaanahu wa ta'aala kaliya caabuda. sida aan kaga soo sheekaynay qisadii nabi ibraahim calayhi salaam waa tii nabi ibraahim calayhi salaam haajar ay u dhashay ismaaciil kadibna Allah subxaanahu wa ta'aala nabi ibraahim uu amray haajar iyo wiilkeeda yar ismaaciil inuu geeyo meesha la yiraahdo hadda Maka, meeshaasoo waagaa ahayd tog cidla ah oo saxara ah. nabi ibraahim calayhi salaam sidii ayuu sameeyey, waatuu haajar iyo ismaaciil oo yar oo naaska nuugaya uu keenay toggii cidlada ahaa ee saxaraha ahaa, kadibna uu meesha kaga tegay. waatii nabi ismaaciil calayhi salaam lugtiisa meeshii uu ku dhuftay ay ka soo burqadeen biyihii zamzamka ahaa. niman carab ah oo Yemen ka yimid oo la yiraahdo Jurhum oo ku jiray sahan biyo ayaa waxay u yimaadeen haajar iyo wiilkeedii yaraa oo il biyo ah meesha ku haysta. kadibna waxay ka dalbadeen inay la soo degaan, kadibna haajar way u ogolaatay inay la soo degaan. meeshii ayay Jurhum soo degeen, kadibna waxaa laga aasaasay magaalada Maka. nabi ismaaciil calayhi salaam wuu weynaaday, kadibna wuxuu ka guursaday qabaa'ilkii Jurhum, meeshii ayuuna ku tarmay. nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil calayhi salaam ayaa Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu amray inay dhisaan Kacbada, kadibna dadka ay amraan inay u soo xajiyaan oo Kacbadaas Allah subxaanahu wa ta'aala ay ku caabudaan. ilaa markii dambe ay yimaadeen qabiil la yiraahdo Khuzaaca oo ay kala wareegeen taladii iyo xukunkii magaalada Maka Jurhum. nin madax u ahaa Khuzaaca oo la oran jiray Amr ibn Luhay oo ganacsade ahaa ayaa safar wuxuu u aaday Shaam, meel la yiraahdo Macaan ayuu tegey. markaasuu wuxuu kula soo kulmay dad caabudaya asnaam oo dhagaxaan intay qoreen ilaah ka dhiganaya. markaasuu weydiiyey, markaasay waxay ku yiraahdeen, waa ilaah aad arki kartid oo aad taaban kartid oo ku hor yaalla oo aad u cibaadaysan kartid oo wax walba oo aad ka dalbatid ku siinaya. Amr ibn Luhay fikraddii ayuu jeclaaday, asnaamtii mid ka mid ah ayuu soo qaatay, kadibna wuxuu keenay Maka. Kacbada ayuu intuu hor dhigay ayuu reer Maka isugu yeeray, kadibna wuxuu u sheegay oo ka dhaadhiciyey in sanamkani uu yahay ilaahoodii oo hadda kadib isaga ay caabudaan oo isaga ay u gowracaan oo isaga ay roobdoonta weydiistaan. mar labaad ayuu laabtay, asnaam kale oo fara badan ayuu soo qaaday, kadibna qabiil walba oo caraba oo mandiqadaas deganaa wuxuu siiyey sanam iyaga u gaara si ay u caabudaan. reer Maka iyo carab halkaas ayaa waxaa uga bilaabatay casrigii ama waqtigii jaahiliga ahaa, waqtigii ay bilaabeen in Allah subxaanahu wa ta'aala ay u sharig yeelaan oo asnaam ay caabudaan. waxaa kaloo casrigaas aad u soo ifbaxday oo aad ugu badatay reer Maka zinada, khamriga iyo caadadii aadka u xumayd ee ahayd in gabdhahooda iyagoo nool ay intay godu qodaan ay ku aasaan ay dili jireen oo layn jireen, iyagoo ku andacoonaya in gabadhu ay u soo jiidi doonto ceeb. iyadoo xaaladaas lagu jiro oo wadcigu noocaas uu yahay oo carab iyo reer Maka ay jaahiliye ku sugan yihiin oo asnaam caabudaan, ayuu Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu soo diray nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam. malaku Jibriil ayaa kula kulmay Gaaru Xiraa, wuxuuna ku dul akhriyey 5 aayadood oo ugu horreysay Quraanka.